Bismillah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Walaalaha qaaliga ay nagu xiranow soo dhawaada. Ciwaankeena saa ku soo aragteen waa qisaska laga arkay istighfaarta iyo faa'iidooyinka ay ka heleen asxaab badan oo kamid ah ahlu khayrka iyo dadka wanaagga jecel. Haddaba qisada tani sidan ayay ku bilaabanaysaa. Qofkani wuxuu leeyahay waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago qisadeyda ku saabsan istighfaarta. Waxaan ahay qof aad u murugo badan, aad u xanuunsan. Xaaladeydana ma ogeyn qof bini aadan ma ogaan karo ilaa Ilaahay uun ma ogeey waxay xaaladeyda ku sugneed. Qof bini aadan ma ogaan karin oo dhahay qofkaas waxaan qof aad u waswaso oo aad u ooyo oo xaaladda aad iyo aad uga cakiran tahay oo dhahay qofkaasi. Marka wuxuu dhahay qofkani waxaan laazimay istighfaarta. Marka Ilaahay mahadiis xaaladeyda way iska wanaagsanaatay. Waxaan joogteynayay istighfaartii anuu u niyeysanaa in Ilaahay culayska iyo waswaaska iyo shakiga iyo culayska iyo murugada in Ilaahay iga dulqaado ayaan u niyeysanay oo dhahay. Wuxuu leeyahay Ilaahay mahadiis waxaa laabteyda way ii degtay culayskii waswaaskii shakigii wixii dhan Ilaahay buu iga dulqaado oo dhahay. Wuxuuna leeyahay waxaan ka shalaysanahay nolosheyda horeento aanan xilli hore aanan bilaabin istighfaarta oo aad uga shalaayo oo dhahay. Waxaan ku faraxsanahay in Ilaahay ii xaqiijiyay oo niyadeyda say jecleed uu ii yeelay walwalkii iyo culayskii iyo kurbadii farada badneed istighfaarta darteed Ilaahay iiga waday. Marka wuxuu leeyahay qof kasteento waxaan dhihi lahaa oo dhahay inuu istighfaarta joogteeyo aan kula talin lahay. Anigana wuxuu dhahay waaba joogteeyay alxamdulillah. Ilaahay shaydaanka uu iga buriyay waswaasin jiray culayska isaari jiray. Haddana wuxuu dhahay istighfaarta waan ku sixdaa waan ku soo kacaa qof kasta oo arkana waan kula dardaarmaa istighfaarta.